السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن وعن ولا لها شرفت لمال كستاد دونك كجوكتان إلهي سبحانه وتعالى دنبجينا يدنبج والدكنا دافو. برنامج كان نحن ربعنا نوجه الله مسألة أما أرين مهمة أو عن عوان وقد قال ملود دعين كرا. أرنتان وحكي كدم بيسي كديم مركي أن كهالله حالة إثيوبيا إسلام مركا أنا أن أدعي شعب كمسلمين تا إثيوبيا أي دتك قاركود خلد أفسرين أو أي يراهدين وأدعي قالوا. marka wax walba waxa loogu tagaa meeshoodii marka waxa qofka mu'minka ah dareenkiisa iyo shucuurkiisa maamulana waa wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala amray oo xukumay. Ilaahay wuxuu leeyahay wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyara. Qof mu'mina rag iyo dumar ba ku ahaadaba ahaatee wuxuu Ilaahay jaangooyay ayay ku jaango'an yihiin oo qofka mu'minka macnihiisa waa sidaasba. haddaba gaalada oo loo duceeyo diinta islaamku maxay ka qabtaa? Gaalada oo loo duceeyo waa dhowr arrimood weey. Marka koowaad mar aan banaanayn gaalada ma banaano in loogu duceeyo dambi dhaaf iyo raxmo loogu duceeyo. taasna waxay ka hor imaanaysaa ballanqaadku Ilaahay subhanahu wa ta'ala u ballanqaaday qofka ku gaaloobo oo gaalnimo ku dhinta inuu naar ku waarayo. Ilaahay wuxuu leeyahay inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Ilaahay wuxuu leeyahay qofka Ilaahay shirki u sameeyo oo gaalnimo ku dhinta faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Ilaahay jannada uu ka xarimay. Gaal marka lagu muddaciin karo dambi dhaaf iyo naxariis lagu muddaciin karo arintaasna waa arin ay culimada muslimiinta isku waafaqsan yihiin quraanka iyo sunnadana ku cad. إلهي سبحانه وتعالى وتولي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هبا هذا كو حتى أدو لكن إنه قال قف مسلم الرحمة يدن بداف وقد دعيه أرنتاس أرن بنان معهن. هذا الدعاء دي أن أدعي إثيوبيا أنا قال إثيوبيا وما دعينين حكومة إثيوبيا وما دعينين waxaan u duceeyay shacabka muslimiinta ah iyo gaalada la nool oo ma taqaana dhibaatada ay wada saameynayso ayaan aniga si guud ugu duceeyay laakiin gaalo iyo xukun Ethiopiana midnatoon uma duceynin ugumana duceynin maxaa la yiraahdaa dambi dhaaf iyo raxmo. taas waa mid la isku raacsan yahay oo banaanayn. xaaladda labaad waxay tahay gaalada ma loogu duceyn karaa hanuun? gaalada ma la dhigi karaa Ilaahu soo hanuuni? arintaas waa loogu duceyn karaa gaalka muxaaribka ah oo dagaalka ku jira iyo kan ma taqaanaan dagaalka lagu la jirin labadaba waa loo duceyn karaa. arintaasna waxay ka sugnaatay Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam. nabigana alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yani markuu u duceynaya qabaa'isha carab sida Dows oo kale iyo qabaa'ilo fara badan wuxuu nabiga alayhi salaatu wasalaam dhihi jiray Ilaahu hanuuni reer hebel oo gaala ah. waxaad kale ogtiin nabiga alayhi salaatu wasalaam inuu habaaray hadda ka hor Quraysh oo ay abaari ku dhacday ay halaagsameen ay rafaadeen haddana ay u yimaadeen ay yiraahdeen Maxamed oo dadkii waa baaba'een inuu ducee nabigana alayhi salaatu wasalaam uu duceeyay ayagoo gaala ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu roob iyo nimco siiyay. taas way dhacday. xaaladda saddexaad waxay tahay gaalada in la habaaro. gaalada in la habaaro waa arrin banaan caadi ahaan in la habaaro. gaar ahaan kuwa muslimiinta dhibo in la habaaro waa arrin banaan waana arrin mashruuca. nabiga alayhi salaatu wasalaamna ma taqaana wuu suubiyey wuuna habaaray caqliga wanaagsan iyo shareecadeenana way ku banaan tahay. taasi shaki kuma jiro. qodobka marka muhiimka ah waxay tahay xaaladda afraad gaalada ma lagu duceyn karaa arrimaha adduunka? waana mid ugu muhiimsan weeye. qof gaal ayaad isla shaqaysan ma dhigi kartaa Ilaahay awlaad ha ku siiyo, Ilaahay ha ku barakeeyo maalkaada, ma ugu duceyn kartaa waxyaalo caadi ah, caafimaad ma ugu duceyn kartaa adiga oo ka qabtid rajo ah qofkan inaa wanaagaada tustid. arintaas culimada qaar waxay leeyihiin haddii ay muuqato maslaxad daahir ah waa loogu duceyn karaa. marka maxaad ogaatay oo isku soo duduubki ah gaalada ma banaana in dambi dhaaf iyo naxariis loogu duceeyo? taasi waa mid la isku raacsan yahay. quraankana uu sheegay culimada muslimiinta ay islaamkana isku raaceen ummadaas ma banaana. midda labaad waxa banaan gaalada in loogu duceeyo wanaag iyo hanuun loogu duceeyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaabka ka baabiyo ma taqaana ka badbaadiyo oo islaamaan loogu duceeyo waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahay. Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam uu suubiyay. sidoo kale gaalada waa la habaari karaa gaar ahaan kuwa muslimiinta dhibaatada u geystay dhibaatada kuwada waxaana la habaaraya kuwa dhibaatada wada ayaa la habaaraya. kan u dambeeya waxa weeye gaalada waa loogu duceyn karaa wixii maslaxa ku jirta. haddaba yaan lagu dhagin bas gaal ayuu u duceeyay
gaal ayuu duceeyey waa inaas weydiisaa gaalka maxaa loogu duceeyey weli aniga hadalkayga waa la qaluuciyey anigu xukuumadda Itoobiya iyo maamulka Itoobiya haysta mataqaana xisbigaas iyo maamulkooda anigu ma duceynin hadalkaygana wuu cadaa waxaan ka hadlayay shacabka Itoobiya iskugu jira muslimiin iyo gaalo iskugu jira oo weli muslimiinta ay badan yihiin ayaan u duceeyey oo aan iraahday ilaahayow amaan si dhibaatadana ka qaad haddaba waxaan rajeynayaa walaalkayga muslimka inaan masaladaas ka qanci doontid ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigaada iyo dembiga waalidka ha dhaafo hana ku naxariisto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh